isku soo noqod wanaagsan daawadayaal Soomaaliland waxa xaqiijisay kiis cusub ee COVID-19 qodobkaasi waxa uu ahaa wariyaha Yaasiin Ali Axmed Yarsiinooyo. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta xaqiijisay kiis cusub oo ah qof laga helay coronavirus oo ay Soomaaliland hore u baartay. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xergeya ayaa sheegay in natiijada baaris lagu sameeyay qof looga shakisanaa coronavirus ay noqotay in qofkaasi laga helay caabuqa. sidoo kale waxa uu sheegay agaasimaha oo ka mid ah guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland in qof hore looga helay coronavirus kadib baaritaan lagu sameeyay laga waayay oo caabuqaasi ka bogsooday. qofka maanta laga helay coronavirus ee maamulka iskiis madax banaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland ayaa waxa uu noqonayaa qofkii afraad ee laga helay deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka arrimay caabuqani coronavirus. Yaasiin Ali Axmed Looyal, Radio Wadani TV.